ما حصل شيء isaga hore Israa'iil Soomaaliya waligeed ogolaan mataqaana aqbalin oo maaragtay aan aqoonsan Israa'iil isaga aqoonsaday isaga dhowr jeer Israa'iil tagay asab arinta waa lagala hadlay Xasan Sheekh dhowr jeer buu Israa'iil tagay oo Netanyahu la kulmay marka Xasan Sheekh uu la socdaa suuragal ma ahan inuu la socon uu la socdaa waa qowda maqashii waxnaha uu qaban waaye boorku isu qarinaya waana wax nimanka dabadhilifyada lagu yaqaano intay wax aqbalaan inay shacabkooda u sheegaan inayna aqbalin oo inay raalli ka ahayn marka waa khuraafaadkaas waa khuraafaad jira waaye marka Xasan Sheekh iyo kooxdiisu way la socdaan si fiican oo dhoweyna oo la socdeen hawshaas waayahay Idris oo soo dhawow xalay waxa lagu dhawaaqay aqoonsi dhexmaray Soomaaliland iyo Israa'iil dadka Soomaaliyeed aad bay uga falceliyeen filla Soomaaliya arrinka way ku fashilantay madaxweyne Xasan waxa la leeyahay mar dhow buu arrinka ku baraarugay bal soo dhawow soo aragta arrinta waxa kama jiraan Xasan Sheekh waa la socday asaga iyo kooxdiisana waxay u xil saarnaayeen in Soomaaliya laga tirtiro khariidada adduunka dadka Soomaaliyeed qabyaalad baa lagu suuxiyay qabyaaladu waa waxaan la yiraahdo transka la yiraahdo mandoriyo waaye ummadda Soomaaliyeed qabyaaladaas lagu suuxiyay qofkana markii la qalahayo waxa la siiwaa la suuxiyaa markaasoo waxoogay baa taqaana la qala oo operation ama wixii rabay laga fuliyaa qaar baa inta la suuxiyo kaliyahooda lala baxaa oo haddana ma taqaana dib u beelo ma taqaana u nool marka Soomaaliya marka waxa lagu suuxinayo waxa weeye waa qabyaaladaas waaye qabyaaladaas lagu suuxinayaa qabyaaladana waxa aaba u ma taqaana kooxda Xasan Sheekh horboodo marka hadda Soomaaliya ceelna uma qodno cidina uma maqno hadda ka horna waxaan sheegay in kooxdan Xasan Sheekh aan loogu imaan doonin wax la yiraahdo dawlad Soomaaliyeed aan loogu imaan doonin maanta waad aragtaan marka hadda ummadda Soomaaliyeed hadii qabyaalad qofka la suuxiyo wax kasta oo operational lagu sameeyo isagay ku dambaysaa marka qof kasta oo qabyaalad lagu suuxiyo isaga u qoolan isagay dhibaatada ku dambaysaa marka hadee halkaas maraynaa Soomaaliya ummadda Soomaaliya qabyaalad baa lagu baabaashay waayahay kala geeyay ayaa darawa Idrisow dawladda federaalka ah ee Soomaaliya way cambaaraysay aqoonsiga dhexmaray Soomaaliland iyo Israa'iil adiguna bilowga hadalkaaga waxaad ka dhawaajisay in Xasan Sheekh Maxamuud oo arrinkan wax ka ogaa sidee isku qabanaysaa arrintaas ما حصل شيء isaga hore Israa'iil Soomaaliya waligeed ogolaan mataqaana aqbalin oo maaragtay aan aqoonsan Israa'iil isaga aqoonsaday isaga dhowr jeer Israa'iil tagay asab arinta waa lagala hadlay Xasan Sheekh dhowr jeer buu Israa'iil tagay oo Netanyahu la kulmay marka Xasan Sheekh uu la socdaa suuragal ma ahan inuu la socon uu la socdaa waa qowda maqashii waxnaha uu qaban waaye boorku isu qarinaya waana wax nimanka dabadhilifyada lagu yaqaano intay wax aqbalaan inay shacabkooda u sheegaan inayna aqbalin oo inay raalli ka ahayn marka waa khuraafaadkaas waa khuraafaad jira waaye marka Xasan Sheekh iyo kooxdiisu way la socdaan si fiican oo dhoweyna oo la socdeen hawshaas waan gartay dabcan hadda bal wax yar dib u milicso xiriirkan hadda dhexmaray Hargeysa iyo Tel Aviv muxuu ka dhigan yahay muxuu Soomaalinimadii u dhimayaa maya dewa Israa'iil de waxay u bareertay inay Soomaaliya kala jarto u dhimayaa maxay tahay in Soomaaliya la kala jaro bay u bareertay marka waxa weeye waxay u bareertay oo u dhardhigatay inay Soomaaliya kala barto oo kala jarto oo qayb waliba aad u tabardaran oo maaragtay ay ayadu markaa qaadato waa sidaa waaye marka nin mataqaana dalkii Soomaaliyeed bay qayb jartay marka wax ka weyn dabbi ka weyn oo la geli kara ma jirabo maxay u taraysaa maxay u dhimaysaa maxay waan gartay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xalay wuxuu iskugu yeeray xubnihii madasha samata bixinta iyo madaxweynihii sagaalaad Farmaajo dabcan wuxuu sheegay in arrintan si midnimo ah loo wajaho ka waran arrinta iyadana
maya dee xasan sheekh ma dhihi karo waan aqbalay hawshaas waxaa laga yaabaa in meesha loogu daato marka si uu isu bari mataqaanaa uu boor isugu qariyo waxaan waa boor isku qarin waaye wuu la socday suuragal ma ahan inuuna yuhuudda oo uu aqoonsaday aan lagu wargelinin in la aqoonsanahayo boqol jeer baa loo sheegay waa laga wada hadlay suuragal ma ahan wax dhici karana maaha marka waxaan boor buu isu qarinayaa wuxuu og yahay dad badan inay ka hor imaan doonaan marka lama soo istaagi karo maxaan ku rahdaa yuhuudda inay aqoonsato raalli baan ka naha lama soo istaagi karo laakiin yuhuuddu waxa uu sheegay qasab uu u sheegay inuu raalli ka yahay in sidaa la sameeyo laakiin tan waa boor isku qaris waaye boor buu isku qarinaya waa wax lagu yaqaano dabadliifnimada lagu yaqaano waan gartay dabcan dadka Soomaaliyeed boqolkiiba waa boqol waa dad muslim ah yuhuudda meeshan ka taagannahay diinta dabcan noo cadaysay xasuuqan Gaza ka geysanayaan sidaas la mid aan ognahay in hadda yuhuudi dhul Soomaaliyeed lagu soo dhaweeyo maxay u dhimaysaa baad isleedahay xataa dareenkii shacabkii Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ma jiro waan in sheegay qabyaalad baa lagu burburiyay dadka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa muslim haddana iyaga islaynahaya muslimka in islayana waa xaaraan waaye adduuniya aakhiraba waa lagu halaagsamayaa way islaynayaan muslimku inuu mataqaanaa iskhiyaamo waa xaaraan waaye way iskhiyaamahayaan mataqaanaa sharaftoodii bay isku gudbahayaan haddana waxaa weeye yuhuud oo waktigan usoo xaydatay inay wadamada islaamka oo dhan tirtirto yuhuud wax la yidhaahda great israel buu netanyahu ka sheekaynayaa marka wuxuu rabaa aqoonsigaas waa been waaye wuxuu rabaa inuu badan cas oo muhiimkaa uu qayb ka qabsado ayuu rabaa khariidad cusub buu soo saaray marka ma ahan aqoonsi laakiin waa qaadasho waaye mid ka difaaci karana lama arko oo meesha ciidan ma joogo oo waad la socotaayo qabiilkii dhowrka bilood isku soo abaabulay ayaa hubka dhigis ku sameeyey oo la socotaan wixii ka dhacay mataqaanaa gooj cata iyo meesha waxaa ka dhacay mataqaanaa iyo laascaana ka dhacay waa la socotaan marka dad ka hor tagaya ma jiro ciidan ma jiro waxa ma jiraan dadkiina qabyaalad baa lagu baabaashay marka yuhuuddu way iska degaysaa waxayna duqeyn ku bilaabaysaa masaajidyada iyo malcaamadaha ayay duqeyn ku bilaabaysaa marka dee diinta haddaanay waxba kaa xeerinaynin inaad muslim tahay macna kuuma samaynaysa marka dadka Soomaaliyeed waa bahaloobay meel kastoo ay joogaan waxa weeye way bahaloobeen qabyaalad baa lagu baabaashay damiirkoodii baa dhintay intooda badan marka waa mushaakil waxaa la yidhahdaa disaster waxaa la yidhahdaa waa masiibo qaran waaye waxayna ku socotaa Soomaaliya in khariidada adduunka laga saaro horeyna waan u sheegay xasan sheekh iyo kooxdiisa looguma imaan doono wax la yidhaahdo dawlad Soomaaliyeed